السلام الله عليكم داوديال إذيلكين با سادو دانتيشين كسو دوادا برامج قارا وان كو وريسان دونا تضبات كان هدي ايبا وقلادو واساسها مشروع النهضة او ان مركا الصومالي لو معنيانا طبعا او يهي ودب الصنالينتا أمد الصوماليات هذا مشروع عاسي أو مد دوانتني لو صوب بندقي مقالة ستوكهولم أيا وحا أن كوريسان دونا أو إلى فردية من كما مرتنا يقوى قدوميها أما عريها أما مركاسي أن صوب بندقها مشروع عن النهضة والشيخ عيسى عفوا وشيخ عيسى الشيخ علي الشيخ أحمد وأن مركزي وحياة بدن كويدين دونا نجونا مركزي سؤالها ويدين دونا أنتوا ده بدن يكون صار اثنان دونان بل أن وحياة به أصوبان لقى يقرشها ومركزي أن ونقون دونا مشروع النهضة أن وجهرين شيخ عيسى كسر وسام على جنة تي في وما سنتها ولا بشيء إن بل وجهرين واحد ربعنا ففاهم جود أن نجسيسو أن أنت كوسا بس مشروع النهضة إن وقته هو نشطي إن أنت صوب بندقتي وحيا به أدمار المرشد أسود جود بس أساس أحان أما أساس أحان النهضة وحويه. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم ولا البشير هذا ما سنتهي iyo daawadayaasha channelka Somali Channel mashruuc nahda runtii waa mashruuc aad iyo aad u ballaaran qoto dheer leh wuxuu ugu bilowday rumaantii waqti hore ayuu ugu bilowday markii aan akhriyay taariikh nahda al-Arabiya Yurub qaabkii loo dhisay qarniyo ka hor waxaa jiray wadanadan Yurub Sweden hadda aan joogno Ingiriiska Jarmalka wadamo badan Scandinavian-ku kamid yahay muddo lagu qadaro muxuu ahaa dhowr boqol sano ka hor ma aysan ahayn sidaan oo kale ma aysan ahayn marka taariikh nahda al-Arabiya waxaan ku qaadanay jaamacadda ayaan ku qaadanay marka casharadii ay kamid ahayd jaamacadda lagu dhigay marka wax badan ayaan ku fikirayay in mashruucan aan ummadda Soomaaliyeed uga faa'iideeyo waqti dheer ayaan ku fikiray ilaahay wuxuu qadaray subxaanahu wa ta'ala in hadda noo suurta gasho in aan mashruucan aan halkan aan ka bilaabno oo sadarkiiseenba muxuu ahaa kulankii laga soo qayb galay dad uqaal ah akhyaar ah dheergarad ah oo dadka Stockholm degan kamid ah ayaa lagu daahfuray barnaamijka lagu daahfuray runtii wuxuu ka hadlayay mashruucan aragti iyo fikir dheer oo la doonayo in lagu dhiso Soomaaliya ayuu ka hadlayay mana aan kali ah dib u dhisku ma aha in daarada dheer wadooyin qurxoon in la sameeyo kaliya ma aha waanu lahayn daarada dheer iyo wadooyin qurxoon waa lahayn laakiin maxaa baabi'iyay waa inaan loogu naqan wixii baabi'iyay waa inaan dib loogu naqan waa in laga faa'iideysto wixii la soo dhaafay waa in taariikhdaas laga faa'iideysto cidii khaldantay waa inaan mar dambe aysan khaldamin cid kale oo wax dhisaysana waa inay wada sax ah waa inay u marto dariiq marka mashruucu nahda wuxuu iftiiminayaa ummadda u iftiiminayaa qaabkii ama fikirkii ay ku dhisi lahayn wadankooda طريقي طبعا loo mari lahaa Soomaaliyana waa Soomaali luqadda Soomaaliyeed waxa ku hadla dad gaaraya 20 milyan ayaa ku hadla luqadda Soomaaliga ah ee degan geeska Afrika degan waa dhulkayni waan jecelnahay waan doonaynaa mar kale inaan maaragtay ku laabano waan jecelnahay inaan wax u qabno wadanka way in shirsi marka la yiraahdo ama laga hadlo arintan dabcan adigu aad soo bandhigtay nahda waa luqad carabiya waxaan hordhac ku sheegay dabcan adigu aad ii sheegtay hadii sida kale loo macneeyo inay noqonayso dib u soo nooleynta ummadda Soomaaliyeed marka qaabka ummadda loo soo nooleynayo mashruucu uu ku qotomo ummadda Soomaaliyeed ma dhiman way nooshahay ummaddu daa'iman ma dhimato balse way hurudaa in la soo xogaa boorka laga jafo inay u laabato qiyamkii iyo wanaagii iyadoo ay lahayd akhlaaqdii wanaagsaneed ummadii markay burburayso waxa waaye ummadaasi waxay ku burburtaa xagga fikirkeeda oo isbedela ilaahay quraankiisa wuxuu ku yiri in allaha la yughayyiru ma biqawmin hatta yughayyiru ma bi anfusihim nin sheekha
oo culimada muslimiinta kamid ah ayaa aayadaas keliya wuxuu ka fasiray 80 bog wax yar ma aha runtii marka sidee isbedel loo heli karaa waa fikir aad u wanaagsan nahda marka waxa weeye waa luqa carabiya waa afkaar hayya fi bi'ati rukud in la soo bandhigo afkaar nool bi'a ama meel deegaan oo wax aysan ka jirin dadku iska hurdaan in loo soo bandhigo afkaar ay ku noolaadaan loo soo bandhigo isla markaasna laga faa'iideysto mustaqbalka laga faa'iideysto mashruucu dabcan saad arkaysid waxaan ugu talagalay inuu socdo 15 sano 15 sano inuu socdo ka bacda natiijadiisa la gaaro kadib natiijadiisa la gaaro marka 15 sano dadku ma sugi karaan dad baa degdegsanaya laakiin anu ma degdegsanaya insha Allah taala waxaan jeclahay si tartiiba in dadka loogu soo bandhigo mashruucan oo culimada ay ka qayb qaataan indhargaarta ku qayb qaato dumarku ka qayb qaato dhalinyaradu ay ka qayb qaataan sida aan doonayo waa sidaas insha Allah taala fikirkan dabcan marka la fiiriyo aad maxaa la yiraahdaa Sheekh Ciise uu yahay mid la taaban kareeto dabcan waana la oran karaa maxaa ahayto inta ku fakaraysa marka la fiiriyo waqti waa aad gelisay 20 sano burbur lagu jiro waa loo baahan yahay dabcan si hadii loo fiiriyo waa la dhihi karaa marka arrinta dib u dhiska mashruuca ummadii ama dalkii marka arrintaas ka hadashay xagee laga bilaabo waa su'aal aad u wanaagsan runtii waxaa laga bilaabi karaa in la soo nooleeyo qiyamka in la soo nooleeyo akhlaaqdii wanaagsan in la soo nooleeyo in la soo nooleeyo derisnimadii dadku isku qabeen kalsoonidii luntay in la soo nooleeyo in ay dadku ay soo nooleeyaan aqoontoodii ay u lahaayeen diinta islaamka faham saxa in laga qaato diinta islaamka oo aysan noqon waxa loo yaqaano macnaha cunfiga iyo maaragtay in la iska ilaaliyo iyo waxyaalaha u keeni kara ummadda dhibaatada u keeni kara laanahu diinta islaamka nafteeda nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam wuxuu ka bilaabay dacwada wuxuu ka bilaabay maka ayuu ka bilaabay maka waxay ahayd fi bi'ati rukud ayay ahayd nabiga calayhi salaatu wasalaam waan ognahay qaabkii uu xalliyo quraysh iyo ummadii runtii waxaan arkaynaa dagaalo ayaa ka jiray 40 sano qaar baa socday qaar baa 20 sano socday ummad burburtay ay ahayd ilaahina quraankiisa wuxuu ku yiri wama arsalnaaka illa rahmatan lil alamin marka halkaas maka nabiga calayhi salaatu wasalaam wanaag iyo khayr ayuu u keenay sidaas oo kaleetana bulsho kasta markii ay baaba'do kama soo qaad markii dawladihii heer Yurub tegay wadamadii muslimiinta qarnigii 16aad waxaan arkaynaa inay dawladahaasi maaragtay gaar ahaan wadamadii muslimiinta waxay tageen Masar ay tageen waxay tageen Dimashq bay tageen waxay tageen wadamadii galbeedka muslimiinta ay tageen magarad marka waxay la soo laabteen wadamadan Yurub dad badan oo ka tagay oo Talyaani ka tagay oo Ingiriis ka tagay oo Jarman ka tagay ee wadamadii muslimiinta tageen waxay arkeen qaabka loo nool yahay ay arkeen marka ay kutubta ay ka soo qaateen ay kutubtaasi dib ay turjumeen hadda waxa lagu dhisay Yurub waxa loo yaqaano maaragtay nahdadii muslimiinta ay ka keeneen anaga marka waxaan aaminsanahay hadii aan nahay dadka qurba joogta waxaan aaminsanahay in aqliga iyo macrifada iyo garaadka aan ka kasbanay Yurub inaan wadankeena aan ku celin karno isla markaasna wadankii uu noo hagaagay insha Allah taala aan dib ugu soo laabto kulankii ugu horeeyay ee aad ku daafurtay mashruucan adigu hadda aad horjoogaha u tahay Sheekh Ciise waxaad ku qabatay sida adigu aan sheegtay rinkii inkastoo warbixinada hadda ama kelibada aan daawanayna qayb ka yihiin dadka ka soo qayb galay iyo aaraadi aad ku aruuriseen maxaa kuu soo baxay maxaase kuu muuqda mashruuc cusub maxuu noqon doonaa ay isdhihi kartaa dadka ku daawanaysa maxay ku leeyihiin bismillah runtii dadku aad bay ula dhaceen barnaamijka waxayna igu yiraahdeen mar walba waa in bishiba mar waa in la qabtaa afkaarta marka uu ku fadhiyo waxa waaye midnimadii Soomaaliyeed horta in la raadiyo gaar ahaan kuwa qurbaha ku nool Stockholm ku nool degmooyinka ama gobolada Sweden ku nool in midnimadooda horta la raadiyo in ayagu ay noqdaan yad waaxida carabtu waxay tiraahdaa al-yad waahid la tusaffiq waa in labada gacmood in la isu geeyo
gacmo wada jir bay ku wanaagsan yihiin marka dadkii runtii aad iyo aad usoo dhaweeyeen barnaamijka kan waana waxay u arkeen inuu yahay mustaqbalka mid uu iftiiminayay ayay u arkeen dadku waxaa laga yaabaa in mashruucan marka laga hadlo nahda Sheekh Ciise inay isweydiinayaan arrimo badan haddaan kaa weydiiyo mashruuc ma dowladda ayuu la kuleeyahay mise maya runtii mashruucu cid iyo hay-ad iyo dowlad iyo lukuma lahan cid wadana ma jirto cid gooni lagu taageerana ma jirto waxaa weeye keliya in dadkii loo soo nooleeyo jacaylkii wadankii ay u qabaan in loo soo nooleeyo xubbul wadankii inay jeclaadaan in ay soomaalinimadooda ay iskula arkaan in ay tahay maaragtay wax ay cizi iyo sharafnimo ay ku gaari karaan runtii waxaana la kulnay dad fara badan oo muslimiin ah ayaan la kulanay oo Stockholm ku nool gaar ahaan markii mu'tamarada ay qabanayaan dadkaasi waxay runtii aad iyo aad ummadda Soomaaliyeed ugu tilmaamaan inay yihiin ummad karti leh aqoon leh awood u leh inay wadankoodii markii ay ku laabtaan in ay gaarsiin karaan laanahu ummadda Ingiriis ku nool wadanku waxay gaarsiin kartaa afkaartii ama fikradihii noloshii wanaagsaneed ay ku arkeen Europe ay ku arkeen gaaraan Ingiriiska sidoo kale kuwa America ku nool Mareykanka ku nool sidoo kale way gaarsiin karaan waxaa kaloo taas lagu dari karaa dadka ku nool wadamada Carabta runtii barwaaqada ku nool gaar ahaan Khaliijka iyo maaragtay wadamadaas waxay arki karaan noloshii iyo baxnimada ka jirta ay arki karaan kadibna waxay u gaarsiin karaan wadanka ay gaarsiinayaan marka dadka muslimiinta anaga nala nool oo aan aragno gaar ahaan dadka Carabta ah waxay yiraahdaan runtii mustaqbal wanaagsan ayaa Soomaaliya u soo ifayay saas bay yiraahdaan markii anaga ayna arkaan anaguna marka waxaa la rabaa inaan kaalintayna aan ka soo baxno aanan noqonin dad maaragtay meeshii laga maleysanayay aan ka soo bixin waa inaan ka soo baxno meeshii laga rabo qaybihii dambe adiga maadsan Sheekh Ciise wadankii Soomaaliya marka la fiiriyo isbedel ka dhacay 20 sano dowladihii la soo maray ama ku meelgaar ahaadaan ama waxyaabo kale to waa la gudbo dowlad rasmi oo caalamka hadda uu qoonsanayo ayaa dalkii gacanta ku haysa arrintan adigu ama mashruucan loogu magac daray ama adigu magac darteen dib u soo nooleynta dalka Soomaaliya nahdan aad u dhigteen xawaan dabcan wuxuu ku soo la dhihi karaa waqtigii loo baahnaa haddana waxaa xogay aad muddo marka la fiiriyo qurbihii ayaa idinku joogtaa gudihii ma jirta qorshe aad ka wadaan ilaa systemkii wixii gudihii ku xiray idinku qurba joog yahay tuna wadankan Sweden ama meel kale ku noolaad aad rabtaan adiga rag kula waday gudihii dalka xarun ku leeyihiin qorshe sama ka bilowdeen si dib u dhiska iyo nidaamkan cusub hadda loola jaan qaaday dalka heerka waa su'aal wanaagsan runtii waan ku faraxsanahay Soomaaliya heerkan hadda maanta la joogo inay soo gaarto بإذن الله تعالى إلهي إذن كيسينا كسو قارتي runtii dawlad kaliya wax ma qaban karto shacabku inuu dhisan yahay waxaan aragnay halkaan waxaan ku aragnay shacabka iyo dawladdu in shacabku awood badan yahay shacabku markii awasiga uu aqoon leeyahay iskuna xiran yahay markaas ayaa dawladdu ay horumar gaari kartaa gudaha wadanka waan jecelnahay in barnaamijkan horta runtii marka koowaad uu gaaro Scandinavian kan uu gaaro Stockholm iyo nawaaxigeeda uu gaaro waan jecelnahay hadii alla yiraahdo marka xaqan in xafiis ka furano intaan xafiis aan ka furano waan jecelnahay anagoo u sii marsiinayna warbaahinta caalamka u sii marsiinayna gaar ahaan warbaahinta sida Somali Channel iyo warbaahinta kale anagoo u sii marsiinayna hadii alla yiraahdo taas ayaan u aragnaa inay tahay faa'iidadii mustaqbalka iftiimay waa iftiin waa in wax cusub iyo fikir cusub waa in la abuuro ninkii geed abuurta timir ah waan ognahay 100 sano kadib ayuu gurtaa anaga waxaan jecelnahay insha Allah taala in dad la dhiso wacyigooda iyo garaadkooda in la dhiso ayaan jecelnahay hadii la yiraahdo mashruucana midka uu ku fadhiyo midkaas ma aha mid lacag lagu aruurinayo ma aha mid dhaqaale ka lagu aruurinayo ma aha waa in waa arrimo bulshadeed waa cilmi ijtimaac yalo ugu dambeyntii adiga maadsan arrintan qurba joogta kaalinta kaga aadan oo ka qayb qaadan karaan xitaa maxaad ku soo guran leedahay barnaamij runtii qurba joogtu runtii hadda ma midaysan arrintan laakiin qof waliba uu jecel yahay qof kasto wala Soomaaliya horta wala la xiriira maanta warbaahinta caalamka ama net ha aato ama TV ha aato ama journal ha aato subax walba qofku uu la socdaa waxa Soomaaliya ka dhacay uu la socdaa
degmooyinka kala duwan ee gobollada kala duwan meel walba Soomaali ay joogto waana la ogyahay meel walba Soomaali ay joogto meelo badan ay ku rafaadsan yihiin jiraan marka halkan dadka jooga qaybka ugu qaad karaan waxa weeye in dadkani ay muujiyaan isku xiraan inay muujiyaan waxa la yiraahdo in ay barnaamijka ay hore ay u wadaan wadankii wadan jacaylkooda iyo wixii ay ka faa'iideen halkan inay geeyaan wadankii isla markaana khibradii iyo qaabkii ay ku arkeen halkan aqoontii inay geeyaan ninkii maanta ka shaqeyn kara macnaha wasaaradda caafimaadka inuu tago ninkii shaqeyn kara maaragtay wasaaradda waxbarashada ninkii gaar ahaan meel walba qofkii turjumi kara maanta aqoonta Yurub taala buugaagta qofkii dad badan aqoon loo Soomaaliyeed ayaa jooga oo turjumi kara buugaagta kala duwan loo baahan yahay turjumi kara qaarna waxayba yaqaanaanba practical ahaan ayay u yaqaanaanba qaabka dawladda loo hogaamiyo iyo shacab loo wado practical ahaan marka qof walba inuu qaybtiisa ka qaato nin walba qaybtiisa inuu ka qaato qof walba qaybta uga aadan inuu ka qaato sidaas way aad u maasanta shaqaysa وهيك داود يالكاسي وحوها وشيخ عيسى علي أحمد أو مركزي يسقوا هذا هرمود كأما قدومي مشروع نحدا أو طبعا مشروع دوانتنا اللي وصل من جاي مجال استوكم عاصمة دودن كيسويدن طبعا صومالي مرة لو معنا وحوي هاي ومشروع دي بوصل نورين تأمة الصوماليين الشيخ أيان كورستي بر بحمل الحريرة أن أرمها يقرشها أي دمع سيهين يسيد يكسو باللابطي أن فكر كمشروع النهضة أن يسيد وكالته أن هو برامج كي قبتين مجالات استوكوم يسوالها سي أن طبعا وحان أن كويديني أن أرمها الحريرة مشروعا أنا وبشير أيان الله يشي وربحين تنمو ورئيسي غني أن قيبت فرصة دي كان بدون عبدير وخياري تديبو كل من دونه أن ورئيسي كلام إذا وحن تكون رافع يسيد أيها أمان الله إذن ودكم أحسنتين دا وشد يولا صعدك